ciidamada howlgalka fuliyana waxaa la faray inay si wanaagsan ula dhaqmaan shacabka Soomaaliyeed oo ah kuwa ay difaacooda jidadka u taagan yihiin. waxaan aad iyo aad ugu xunnahay falkii askari ka tirsanaa ciidanka milishiibi iyo dawladda hoose oo maanta ku dilay muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ah darawalada gaadiidka shacabka. waxaan murugta la qaybsanaynaa qoyskii uu ka baxay muwaadinka Soomaaliyeed Allah u naxariistay marxuum Ibrahim Aways Ahmed. sidoo kalena askariga dilka geysana waxaa la horgeyn doonaa sharciga. shacabka Soomaaliyeed waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dulqaadka ay muujiyeen iyo sidoo ay ula shaqeynayaan ciidamada amniga. waxaan rajaynaynaa in ciidamada ay garab istaagi doonaan shaqadooda. sidoo kale waxaan mar labaad bogaadinaynaa shacabka degmada Daynile oo shalay si geesinimo leh ciidamada amniga uga gacan siiyay soo qabashada gacan ku dhiig leh ka tirsan shabaab oo dil u geystay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka. waxaana ku kalsooni qabnaa in bulshada ku nool degmooyinka kale caasimadda ee sidaas oo kale ay ula shaqeyn doonaan ciidamada amniga.